السلام عليكم. kusoo dhawaada janaalka Zaahir Maxamed. Maalmahan waxaa noo socday casharo taxana oo macroeconomic ah, inkastoo maalmahan dib u dhacay. Waa ka raaligelinaa, dad badan ayaa la soo hadlay waraha casharadii maxaa ku dhacay, dib may u dhaceen. Marka maalmahan waxaa yar waa ka mashquulay, waa ka hadda dib u soo bilaabnay. Casharkeena sagaalada maanta qaadanaynaa. Casharkeena sagaalada wuxuu ka hadlayaa badanaa price aggregate change levelka, waxyaalaha price la xiriira. waxyaalaha ugu weyn waxaa ka mid ah price la xiriira maanta aragna ka hadalno CPI iyo GDP deflator. labadooda badanaa waxaa loo isticmaalaa price change aggregate-ka oo badanaa inflation-ka lagu soo saaraa. ma inkastoo casharka xoogaa yar u badan yahay, laakiin maanta kaliya waxaan rabaa inaan ka hadlo CPI kadibna aan GDP deflator ka hadalno. GDP deflator kadibna inaan ka hadalno inflation-ka. marka aan maanta waxaan ka qaadan doonaa CPI maxaa la lahaa. CPI waxaa waaye waa consumer price index. waa dadka consumerka ah oo householdiga waxyaalaha consume garayaan price-kay ku baxdo ayaa mar walba rabaa in la shirgareeyo. waxaa loo isticmaalaa waxaa jira waxa la lahaay basket aa jira waxa la lahaay of goods and service. basketkaas waxaa waaye wuxuu isku koobayaa ama isku keenayaa wax walba oo markaas wadankaas laga isticmaalayo, oo waxyaalaha primary iyo waxyaalaha secondary iyo waxyaalaha badanaa la isticmaalo oo loo badan yahay in la gato. waxyaalahaas ayaa marka la isku keeno ayaa waxaa la lahaa basket aa lahaa. marka basketka wax kale maaha, waa itemska oo wadankaas laga isticmaalayo in la isku keeno oo la laho wadan hebel intaas oo isticmaalaa, wadan hebel intaas oo isticmaalaa. marka wuxuu meeshan gareynaa costiga oo ku baxa basketkaas, costiga oo ku baxaya basketka of goods and service-ka. marka suuqa marka la joogo waxaa laga yaabaa taas oo lagu kordhimaya wadamo qaar waxaa arkaysaa marketkeeda ku xirantaa suuqa soo u weyn yahay oo kale, ama wax available ka yahay oo consumerka aad u badan yihiin oo kale. marka basketka wuxuu noqonaa macnaa itemskaas oo waxaa ku jira wax walba oo markaas suuqa laga isticmaalayo, ahaato waxyaalaha qudaarta, ahaato waxyaalaha ahaato electronic waxaba ahaato. marka waxaa jiro badanaa markii oo CPI la isticmaalayo classification aa jiro oo caalami ah oo adduunka la isticmaalo. waxaa la lahaa KOICOP classification aa lahaa. waa google gareyn kartiin, waa fiirin kartiin. KOICOP-kaas wuxuu isku soo koobaa 12 category soo koobaa. 12 category wuxuu ka hadlaa badanaa waxyaalaha foodka, non-foodka, educationka, healthiga. wuxuu ka hadlaa mataqaanaa wuxuu ka hadlaa cultureka ka hadlaa. way badan yihiin. marka 12 category waayo. 12 category lagu dabaqeynaa marka mid walba itemska galaya. marka wadan walba lagu kala duwan yahay, wadanaa 500 ah, wadanaa 1000 ah, wadanaa 2000 ah. marka wadankaas uu weyn yahay ku xirxan yahay. marka basketkaas la measure gareynaa costigiisa wixii dad consumerka ay gataan. marka yaa gadanayo badanaa CPI-da wuxuu la xiriiraa waa household waa consumerka caadiga, dadka caadiga waxay gadanaa waaye. dadkaas caadiga waxay gataan oo iyagoo gadanaa xilli cayiman. okay, CPI-da marka laga hadlaayo waxaa jira waxa la lahaayo formula badan jira la isticmaalo, laakiin se midkan formulahana ugu weyn oo ugu muhiimsan oo waxaa la lahaa Laspers formula. formula kalena way jiraan oo CPI-da loo isticmaalo, waxaa ka mid ah Pashi formula iyo Fisherka. marka laakiin se markii loo fiiriyo 90% waxaa la isticmaalaa CPI-da oo Laspers formula qaacidadan ah. marka qaacidadan hadaa qeexi xoogaa wuxuu ka hadlaa waa price-ka oo current year T waxaa laga soo gaabiyey waa current year-kan hadda aan ku jirno. okay, current year waaye. midkan waa current year, price-ka hadda lagu jiro sanadkan la isticmaalaya. sorry. okay, iyo okay current year dhamaystirno.
iyo in la isticmaalo price quantity-ga oo base year base year waxaa la macnaa base year waxaa waaye base year wuxuu noqonaa marka meel walba aa zero ku aragtin waa reference year ama base year ama base period base macnaha waxaa waaye xilli waxaa jira mar walba oo base laga soo qaato mar walba ha ahaato national account ha ahaato price ka ahaato mar walba waxaa jira price constant ah consistency year aa jira waxaa lahay oo laga soo guuxayo oo reference u ah yearkaas ayaa quantity-giisa waay macnaha fixed-ka ah oo previous year ah labada marka la isku dhufto oo samkooda ah haddana samkii oo price-kii hore iyo base-kii ahaa iyo quantity-kii base-kii ahaa loo qaybina kadib marka la dhufnaa waxaa kusoo baxaya CPI-da oo markaas la taagan yahay itemkaas marka item waxaan u taagan tahay waa item waay macnaha marka la xisaabinayo CPI-da bar item loo xisaabiyaa bar itemkaas totalkiisu soo daraa item walbo measurekiisu gooni waaye kadib haddana waxaa loo sameynaa agageeda loo sameynaa okay marka waxaa rabaa inaan ka hadlo sababta oo mar walba oo quantity-ga asoo current quantity maxaa loogu dhigay dad badan isweydiinaya constant ama base year maxaa loogu dhigay maxaa yeelay waxaa loogu dhigay dadka badankooda oo householdiya ma bedelaan macnaha basketkooda tusaalahaan kale waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor cunada cun jirtay ama waxyaalaha gadan jirta la gadanay maybe in producti oo magaca isbedelaa laga yaabaa shirkada magaceeda isbedesho laakiinse itemska mar walba waxaa cunaysa khudaarta ahaato ama cunada caadi ahaato ama waxa ahaato badanaa isbedelaan badanaa sidaa daraadeed badanaa qaacidada wuxuu qabaa in oo quantity oo laga dhigo base year oo constant ah price-ka caadigana oo markaas lagu dhufto oo meeshaas sidaas lagu measure gareeyo okay intaasaa rabaa in xogaa ni fahamsiiyo GDP deflator aan qaadan doonaa laakiinse waxaa ku fiican tahay in aan ku qaadano waqti kale oo si oo qofku u fahmo kadibna as comparison isku sameyno comparison kadib markaas kadib aan saa ogaano si inflationka loo soo saaro intaas xusuusimaa please haddii su'aal qabto comment igu reeb intaas soo jeedinaa waa mar kale insha Allah maca salaam